Hey, I'm gonna make you work for your dollar. Say something with that great radio voice. When you're listening to nothing but the best of oldies, you're listening to Magic 98.9. Thank you so much. God bless you. Thank you. Kilibka fideogani ayaa aad u baahay kadib markii ay daawadeen malaayiin dada. Waa nin taagan mid ka mid ah wadooyinka Columbus, Ohio ee dalka Amerika. Ninkani oo sita boor ay ku qoran tahay Alle ayaa ii hibeeyay cod. Waxaan ahaa nin ka howlgala idaacad ay ku dhacday dhibaato. Fadlan si uun ii caawi, waan ku farxi doonaa. Kilibkan ayaa soo jiitay dad aad u badan indhaha caalamka, taasoo ninkan u sahashay inuu helo shaqo oo ka soo baxo noloshii uu ku noolaa oo ahayd darbi jiif iyo inuu isticmaalo alkoolada. Ninkani oo lagu magacaabo Ted Williams waxa uu dhashay 1957kii, waxaana ku dhashay magaalada New York ee dalka Amerika. Williams wuxuu lahaa cod aad fasiix u ah oo aad looga jecel yahay idaacadaha iyo xayeysiimaha, taasoo u suuragelisay isaga oo da'yar in uu ka howlgalo idaacad. Laakiin nasiib darro 1994 ayaa laga raacday idaacaddii kadib markii uu bilaabay isticmaalka alkoolada, taasi oo ku tarax tagay, taasi oo ku waayay familkiisii iyo waalidiintiisii. Wuxuuna noqday nin darbi jiif ah, balse muddo ku dhow 20 sano kadib ayuu la yimaaday fikirka hadda ah in uu qoray boorkani, kaasi oo fiidiyowga laga duubay caawiyay. Ted Williams waxa uu noqday nin ka soo muuqday dalka Mareykanka show badan oo caan ka ah oo lagu qabto sida Jimmy Fallon iyo The Big Comeback oo Steve ninka la oranayo uu qabto. Ted Williams wuxuu dib ula midoobay hooyadiis iyo familkiisii oo ka maqnaa muddo ku dhow 20 sano. Ted Williams wuxuu sidoo kale bilaabay inuu caawiyo dadka homelesska ama guri la'aanta darbi jiifka ah. People of Pepsi Cola, the people who put the in cola. Bye bye, I'll see you soon.